kaamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Buuhoodle gaar ahaan Shangal oo 6 kiiloomitir kaga beegan dhinaca waqooyi ee Buuhoodle ay degan yihiin barakacyaal aad u badan oo ku ceeldooba abaartii sima ee ka dhacday geeyiga Soomaaliya u degto kaamka barakacyaasha dadka degan ayaa waxay quraanka Kariinka ku dhintay geed hoosti shacab weynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa waxay gaarsiinay dhismo lagu dhisayo macaamad ay kaga bixin geedkan hoostiis deeqda ay soo bixiyeen walaalaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa waxa loo wakiishay Deeq Cabdikariin isagoo halka ka hadlay hadalkiisa waxaan ka mid ahaa marka waxaan si ilaahay dartii adiguna dadka muxsiniinta wax la baxaya wax uga raadi oo isu xilqaan marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa igu guuleeyay aniga iyo ragii aan la kaashaday oo wadaadkan Maxamed Cabdiwali iyo culimadii deegaanka oo dhalinyaradii culimada ahayd deegaanka ahayd markii aan la tagay ay la qaateen ilaahay waa nagu guuleeyay wixii ragu kaco rabbi saaqbalo way rumoobaan hadda waxaanu u keenay malcaamadii jiingadii iyo qoygii ab qalabkii ay naga codsadeen iyagoo dhammaystiran baanu u keenay waad aragtana waa la rogayaa faaqnoole fare kama qodna baa la yiri baahida malcaamadu intaa kaliya jiingada iyo qoriga kuma koobna waa baahi aad u fara badan waa tusar weey waa meel malcaamada oo qoxoonti aad u farabadan dan yara baa dhigta lacag lagama qaado 150 qof 110 qof dhigta lacag lagama qaado bilaash baa lagu daraa waxaan u sheegaynaa inaan amaanadii aan ka soo qaadnay aan soo gaarsiinay macallinkii iyo ardaydii aad aragtaan insha Allah taala dhaqsana loo bilaabi doono oo laga shaqayn doono madrasada si ay horay ardadu u galaan oo magaranaysa qorraxda iyo waad arkaysaan meesha ay horay wax ugu dhigan jireen sida ay u dulaysan tahay sida ay u tahay meel xataa qorrax iyo dhaxantoona aan cilmiina xilligan uu yahay xilli dhaxan ah marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay kaga waxa weeye raystaan dhibaatadii iyo qorraxdii iyo boodhkii iyo meeshii ay fadhiyeen ay kaga raystaan xodaygaas ay fadhiyeen markii hore malcaamadu aad iyo aad u dayacneed in fara badan bay dayacneed waxa weeye dusheedu ay qaawanayd walaalaha muslimiinta ayaa soo xilqaamay oo ka dhiidhiyay dadkooda waxa weeye qaxootiga waxa weeye dhibaatada ugu dambeyn halka waxa ugu baaqay macalinka dhiga madrasada ku taala kaamka barakacyaasha ee Shangal in ay soo caawiyaan dhammaan muslimiinta ku dhaqan dunida daafaheeda meeshan sidii la noo soo sheegay waa meeshii baahida diintu ay ka jirtay insha Allah taala hadda waxay culimadana soo gaarsiiyeen dhiskii oo ka kooban looxiyo jingadii adigu dadka deegaanka hadda ka hor way isla xilqaameen adigu waxbay meesha ka dhiseen laakiinse baahidu inta kuma dhanno baahi badan baa hadda harsan buuglihii baa dhiman sidii la noo soo sheegay barandadii ay carruurtu ku nasan lahaayeen baa dhiman labadan qole hadda dhisan waa min 4 mitir dadka joogana ka badan intaas oo 110 iyo waliba dhowr qof ayaa meeshan dhigtaa marka insha Allah taala dadka muxsiniinta waan uga mahadcelinaynaa ilaahay ka abaalmariyo Najeem Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Bulsho TV kaamka barakacyaasha ee Shangal